munaasabada siyaarsara soo agaasiman ururka xuquuqul insaanka Human Rights Center ayaa habeennimadii xalay ka qabsoontay hotel Nasteex ee magaalada Burco. Munaasabadani oo jeedkeedu daranaa xuquuqda ibni aadamka iyo sidoo kale tacadiyada lagula kaco aadamaha. Haddaba gudoomiyaha xuquuqul insaanka HRC Gariiqan Guula Darfac ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay munaasabadaasi ka hadlay xorriyadka hadalka iyo sidoo kale faa'iidooyinka uu leeyahay. Waxaana kamid ah hadaladiisa sida tan. waxa kale la yaab leh ibni aadamka Ilaahay gaar uga yeelay oo mucjisooyinka Ilaahay siiyay kamid ah dadku kala fikir duwan dadku si soo ma arki karayo sida ay u kala midab duwan yihiin u kala dhaqan duwan yihiin qof dad cadaan ah dad indhayar dad madow nooc walba in bini'aadamku u leenahay ayaa fikirkeenu noo kala duwan yahay dadkiina isku si wax u arkaan Ilaahay ugu talagalay marka waxa shardi ah oo muhiim noqonaysa in bini'aadamku wada noolaan karo si uu kala fikira haddii bini'aadamku isku dayo inuu ismuqooniyo oo ciidi istiraahdo koox ama qof uu istiraahdo adiga fikirkaagu uu wanaagsan yahay because qof walba wuxuu haystaa fikirkiisa inuu saxan yahay inta kale waxay noqonaysaa in isku dayo inuu xoog sheegto dabeedna dadku istiro nabaduna korka ay baabaado marka haddii cabirka la xiro oo salahaan ay kugu adkaato inaad fikirkaaga cabirtid ama shakidid oo isaadaan ma lagu xiraa ma lagu maagaama dhibaato soo gaadha inaad fikirtaabaad iska deynaysaa marka critically thinking waxaan soo dad fikirtid oo ra'yi la yara timaadid arma dhibaato kugu soo noqday marka ummadaha fikirka xira way ku adag tahay inay ka baxaan duruufta ay ku nool yihiin ummadaha fikirka xira laakiin ummadaha fikirka u dulqaata iyo cabiraadda fikirka u dulqaata wax mar walba helaan fursad ay dhibaatada haysata kaga bixi karaan dadka dhibaatada ka saara ummaduhuna dadka sida caadiga u fikira ma waxa kale oo la yiri xiriir baa ka dhaxeeya nabadda iyo inay dadku hadlaan haddii dadku hadlaan cabashooyinka iyo grievanceska qalbigooda ku jira waxay wadaagi karaan hadal waxa laga yaabaa oday baad dhageysanaysa caraysan nervous oo TV-ga ka hadlaya oo hadalla aan jeclaysan ku hadlaya laakiin dhinac kale markaad ka eegtid odaygaas hadhow markuu gurigiisa iska tago iska seexanaya oo nafisaya waxaan dawladda waanigi soo maagay maaragtay nafis buu qaadanaya oo iska seexanaya hadduu si fursad haysan lahayn oo dad buu abaabul lahaa inamadu adeerkii yahay buu oranaya qori qaado meel dhagax ila waxaan caabanayo rabaa in la dareemo qofkii cabasho qaba laakiin dad si fursad hadal cabashadaada caawo dhan sheego nooca doontid ku sheego nabad baa imanaysa dadkuna waxay bartaan dulqaadkay bartaan tolerance-kay qaataan bulshooyinkuna ma wada joogaan oo dadku ma wada noolaan karo haddaan dulqaad lahayn haddaan la isu dulqaadan dulqaadku waa maxay baa marka la eego dulqaadku ma aha inaad maqashid wax wanaagsan oo farxad leh ma aha dulqaadku waa inaad waxa ugu xun ee dhiba ee yimaada aad aqbali kartid adoon yeelin dad u dulqaadanaysa yani qof aanad rabin oo aad jeclayn fikirkiisa iyo dhaqankiisa baad la noolaanaysa because danba idinku jirta inaad wada noolaataan danba idinku jirta haddii kale way istilaysaa hadday istishaan adigana way kaa daadanaysaa isagana way ka daadanaysaa Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Somali Cable Burco.